السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوادا برنامج كي بودكاست كي دكتور هباق ومانتو حنكسو جناهي راديو هرجيسة ومانتو أي تهي تولاتا كوبي طبعا كي بشي سدداد لبدو كوني الحلباتن كي تولاتا أي تهي أو صباح أي تهي مانتو برنامج كي بودكاست كي دكتور هباق وحكسو قيب جلايا شافعي ومركي لبعض أي تهي برنامج كا أو كسو قيب جلا شافعي كسر دو برنامج كا دكتور هباق بودكاست كني صد حادويا مانتا. بسم الله وضع محسنتي دكتور هباق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بني سلام يا دمان دوغيستياشا دكتور هباق بوبال وانكو فرحساني مركي لباد إن أنكالا سوقيب قالو أنه غوري برعا يعني وشافعية بودكاستيغا كبحا على channelkaaga YouTube-ka iyo sidoo kale Radio Hargeysa. Kole maanta waxaan ka hadlaynaa qodobkaas ah qodobka mowduuc ku saabsan dumarka qaabka dumarka ugu saabsan wax weeye dumarka dhibaatooyinka haysta. sidoo ogsoonahay dumarka ay bulshadeena ay ku dhaqanahay waxaan aragnaa dhibaatooyin badan oo haysta dhibaatooyinkaas ka mid tahay inay leeyihiin hooyo kaligeed caruur korinaysa inan kaligeed meel ka shaqaysanaysa qof haween oo cid la dareemaysa sidoo kale aan aragnay dumar badan dhibaatooyin badan la soo dirseen iyo duruufo adag haystaan. barnaamijkeena waxaan rabnaa inaan kaga hadalno ama Dr. Hibaq inoogu faahfaahiso oo aan mar labaad anuguna aan fursad u helay inaan ku wareysto Dr. Hibaq. Dr. Hibaq sidee ayaanay u jabi karin ama aanay dhibaatadu u daciifin karin dumarkeena ama haweenka. aad baad umahadsantahay Shaafici. maanta xalqadan aan ka hadlayno haweenka ama dumarka dhibaatooyinka haysata waa xalqad aad u muhiim oo taabanaysa gabadh kasta inan kasta hooyo kasta khaasatan aniga ahaan Hibaq ay taabanaysa. dadku caadi ahaan waa laba nooc u nugul dhibaatada oo si yar fudud dibtu u jabiso oo isbedela iyo nooc adag oo markasta dhibaatadu ay ku dhacdo markuu qof dib u kaca hadaba sidan u adkaanay oo dhibaatadu aan ii jabinin wayna marka ugu horeysa originalkayga Ilaahay abuur ee quruxda badna ee iska celinaya jabka iyo dhibaatada in dib u soo celiyo. Ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka wuxuu yiri laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. bini aadamku waxaanu abuurnay qaabkii ugu quruxda badna ugu adka ayuu abuurnay ee dhibaatada iyo jugaga noloshu ay gaarsiinayso u adkeysanay markiiba dib u kacayay. hadaba originalkayga Ilaahay abuuray wacna sidan u soo celin karaa waxaan ku soo celin karaa cibaadadu waxay sameynaysaa saddex shay aad u muhiim ah. ta koobaad waxa weeyaan dibadhiska gudaha naftaada ay sameynaysaa cibaadadu. talabaad waxa weeyaan waxay saxaysaa ceebtad leedahay iyo khaladaha iyo dabiicadaha xum aad leedahay ayay saxaysaa ay nadiifinaysaa. ta saddexaad waxa weeyaan cibaadadu waxay ku siinaysaa daryeel iyo taageero shucuureed ayay ku siinaysaa oo ay ku adkeynaysaa. Ilaahay subhanahu wa ta'ala suurati Maryam wuxuu yiri xanaanan min ladunna yani waxa weeyaan waxaad gaaraysaa markaad cibaadada wadid marxalad Ilaahay qalbigaaga qaboojiyo oo naxariis iyo kalgacal dhinaca Ilaahay inay ku soo degto. marka ta koobaad waxa weeyaan ama qodobka koobaad ee ka ilaali inaad u jabtid dhibaatada nolosha waxa weeyaan cibaadada. Doctoraad bad maadsan tahay hadda waxaad noo sheegtay doctor saad noo sheegtay imika suuratu Maryam ayaan rabnaa inaad nooga hadasho tusaalena na siiso. suuratu Maryam waxa weeyaan suuradaha runtii dumarka lagu talagalay markay akhriyaan inay qalbigooda ay qaboojiso oo naxariis kalgacal badan ay dumarku ka helayaan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri waxanaanan min ladunna yani kalgacal iyo naxariis dhinacayga ka imanaysa ayaa kugu soo degaysa. suuratu Maryam oo ka hadlaysay qof dumara ama haweena Maryam alayha salaam. Maryam oo dhibaatadii iyo jugagii nolosha iyo naxdintii nolosha u adkaysatay oo aan isdhiibin oo aan isbedelin oo ishaysatay nafteeda gudaheedu ay ishaysatay iyo dibadaba ka qurux badan dhibaatadaas iyo ciriiriga farbadan oo gaaray aan waxba yeelin heer ay u samartay dhibaatooyinka nolosha soo gaadhay ee suurat Maryam ay ka warantay. Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u bixiyay sayyidat nisaa'il caalamiin boqoradii haweenka ama haweenka ugu sharafta badan oo ugu sareysa dumarka adduunka. waa maxay sababta sayyidatu nisaa'il caalamiin loo bixiyay ama boqorada haweenka Maryam alayha salaam? waxa Ilaahay magaca uu siiyay sharafta uu siiyay sababtu waxa weeyaan wixii dhibaato
iyo xanuun dumarka adduunka gaadho oo dhan wuxuu ku soo ururay Maryam wixii dumar gabadh kasta iyo inan kasta dhib gaari lahayd Maryam ayuu ku soo ururay ku dhacday dhibaatooyinkaas oo dhan markaasay u samirtay oo cibaadaysatay oo ku guuleysatay imtixaanka markaasuu Ilaahay u bixiyay sayyidat nisaa'il caalamiin hadan ka hadlo Maryamna macnaheeda xarfiga waa maxay luqadda bani Israa'iil ama yahuudiga qadiimka Maryam waxa weeyaan khaadimatul bayt waxa weeyaan tii khadmadeysay u adeegsanaysay masaajidka ama masjid al-aqsa u khadmadeysay u shaqaynaysay macna kalena way leedahay facibriga waxa weeyaan Maryam al-caabida gabadha cibaadada badan ee cibaadada u gooday way waad mahadsantahay doctor waxaad noo sheegtay waa maxay duruufta iyo dhibaatada Maryam ku dhacday kaligeed taasoo sidoo hore nagu sheegtay dhibaato kasta oo dumar ku dhacda inay Maryam kaligeed ku koobnaatay Maryam runtii waa tusaale aad u qurux badan oo wacan oo u mudan in dumarku iyo gabadh kasta ay ku dayato ay tusaale ka dhigato Ilaahayna wuxuu bixiyay sayyidat nisaa'il caalamiin Maryam duruufo fara badan bay soo martay iyo dhibaato badan bay soo martay dhibaatadaas oo gabadh kasta kaligeed ku dhacayso hadii gabadh kaligeed ku dhacdo dhabarka ka jabinaysa ayaa Maryam waxa soo ranba kaligeed bay soo martay marka koobaad Maryam tay agoonnimo iyo rajinimo ku kortay Ilaahay aabaheed hooyadii waxay dhaleen iyadoo waaweyn ayay dhaleen Maryam Ilaahay subxaanahu wa ta'aala taanu ku xaqiijiyay quraanka oo wuxuu yiri aabaheed Imraan baa la oran jiray hooyadeed markay uur qaaday Maryam caloosh ay ku siday ayaa subxaanahu wa ta'aala waxa quraanka tiri bismillaahir rahmaanir rahiim id qaalat imra'atu Imraan rabbi nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samii'ul 'aliim Ilaahayow ilmahan caloosh ku siday bay tiri haduu inaan soo baxo Ilaahay waxaan u hibeeyay masjid al-aqsa masaajidkan u hibeeyay inuu kaas oo xambaarsanaado culayska masaajidka iyo cibaadada iyo diinta uu dadka u khidmadeeyo diintaada u khidmadeeyo oo Ilaahay u caabudo ayuu hibeeyay laakiin waxay dhashay inan ay dhashay bay ka xumaatay oo waxay tiri bismillaahir rahmaanir rahiim Ilaahay tan quraanka ugu xaqiijiyo waxay tiri falamma wada'atha qalat rabbi wada'tuha untha والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم markii umushay waxay tii Ilaahu inan ban dhalay Ilaahayna uu ogay waxayna dhashay marka waxay tii Ilaahu inantu isku mid maaha Maryam ban u bixiyayna sidaas Maryam ay u hibaysay Maryam masaajidka ay joogto ku cibaadaysato ay khidmadayso waxa lagu leeyahay Maryam aabaheed wuxuu dhintay iyadoo caloosha hooyadeed ku jirto aabaheed ma arkin hooyadeedna qof weyn bayd markay dhashay hadhowtana way gabowdo way dhimatay Maryam waxay ku soo kortay agoonnimo iyo rajanimo taas oo dhibaato dumar fara badan ku dhacaysa oo cuqudad ku reebto oo dhibaato u geysata dhinaca nolosha Maryam markay hooyadeed jamatay waxa kafaalad qaaday culayska tarbiyadeeda iyo nolosheeda qaaday ninkii qabay habaryarteed oo la oran jiray Zakariya alayhi salaam oo nabi ahaa Zakariya culayska iyo tarbiyada iyo kafaaladeeda iyo nolosheeda isaga qaaday wuxuu gaaray heer inuu qolog uga dhiso masaajidka ay ku cibaadaysto cidina aan u gali karin ka bacdi yahuudi baa dilay Zakariya uu dhintay markuu dhintay ayaa Maryam malabaad bay cidlo ku soo noqotay waxay weyday garabkii iyo wehelkii iyo tiirka adkay nolosha ku tiirsanaysay markuu dhintay ayaa hadhowtana uur bay qaado imtixaan weyn buu Ilaahay itixaamay iyadoo la guursanin ayaa uur qaaday oo waxay siday Ciisa alayhi salaam Ilaahay baa taas wuxuu ku xaqiijiyay quraanka wuxuu yiri malaa'iktiba u timi Maryam kaas waxay ku yiraahdeen bismillaahir rahmaanir rahiim id qalat al malaa'ikatu ya Maryam inna Allah yubashshiruki bi kalmatin minhu ismuhu al-Masiih Ciisa ibn Maryam wajihan fi ad-dunya wal aakhirah Maryamay waxa lagu bishaareynaya Ciisa oo nabi noqonaya markaasay naxdo ay tiri bismillaahir rahmaanir rahiim qalat rabbi anna yakun li waladun wa lam yamsasni bashar sadaqa Allah al-azim Ilaahay sidan uur qaaday ma ilmo u dhalay anugana lay guursan ayay tiri markaasuu Ilaahay ku iri bismillaahir rahmaanir rahiim qala kadhalika Allah yakhluqu ma yasha إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم أمر باسودقي وعركي إلهي كسودقي إلهي وحدون وصمينيا هدو وحقان صدوح أرانيا كن فيكون هذا بقى دباتة مريم قاعدي بل وحا كفكرتان إنه يدين أجلسان إنن شريفة دا أو عفيفة دا أو ولي قد نولشي دا مساجد عبادة كل ما يستطيع ka baxaysa masaajidka iyadoo uur leh oo naxsan oo ooyeysa oo kaligeeda oo caloosheeda ilmo ku dhex jiro dhaba ilmo xaqiiqi oo dhaqdhaqaaqayo oo fooshi qabatay xanuunkii fooshu uu qabtay kaligeed bay saxaara ay tagtay 3 xanuun baa Maryam haystay xanuunka
fooshe dabiiciga dumarku ay soo maraan khaasatan gabadhu markay tahay bikir oo ilmihii koobaad uu yahay oo dhakhtar haysan iyo kaarjibin aan haysan ay saxaaro kaligeed ay tagto xanuunka cidlada hooyo lama joogto ama walaal lama joogto madaxeeda salaaxayso oo u ducaynaysa ta saddexaad waxa weeyaan ugu daran alamka xanuunka caarka ay ka baqayso in la caayo iyo lagu digto oo maxay ahayd lagu tuhmiyo sharafteeda iyadoo shariifada oo cafiifada markaasay oyday ay tiri bismillaahi raxmaani raxiim yaa laytanii midtu qabla haada wa kuntu nasya mansiya alilaahu mandhinto ilaahu man ahaado gidaar ama geed ama dhagax meel yaalo oo ajirinba man ahaado waxay gaadhay heer inuu gaadho maskax burbureed ay isku dhex daadato laakiin waxa uga imi naxariista ilaahayba daqiiqadaa soo degtay ilaahay dumarka ugu talagelin inay ooyaan ama murugoodaan ilaahay baa ku idhi allaa taxzani ha ooyin ha murugoonin ha cadhoonin buu ilaahay ku idhi dumarka ilaahay ugu talagelin inay ooyaan ama ay dhibaatoodaan markaasaa tii koobaad waxay doon ilaahay qalbigeeda uu kabo markuu qalbigeedii kabay ayaa hadhowtana biya hoosta uga soo baxay dhulka ka soo baxay oo dilaacay oo ay cabtay markaasuu ilaahay ku xiri allaa taxzani qad jacala rabbuki taxtaki sariya ilaahay biyo ayuu dhulka kaaga soo saaray ee hamurugoonin buu ku idhi markii biyo cabtay ayuu hadhowtana ku tiirsatay geed timiroo meesha yaalay markaasuu ilaahay ku idhi bismillaahi raxmaani raxiim wahuzzi ilayki bijidci nakhlati tusaaqatu calayki rutaban janiya ilaahay wuxuu ku idhi geedka timirta ruux say timir bisil ay kugu soo degto geedka timirta doctor sidee loo yiri gabadh oolanaysa oo cilda joogta geedka timirta in ognahay inaan rag ruuxi karin sidee gabadha loo yiri ama ilaahay uu yiri subxaanahu wa ta'aala ruux oo timirta kaaga soo dhacdo sababta loo yiri maxay tahay okay taas waxaan aad mahadsantahay su'aal aad u qurux badan taas oo faa'iido aan kala soo baxayno sheekada Maryam aad u muhiim ah geedka timirta san garan waa geed adag oo aan la ruuxi karin xataa hadduu nin isku dayo inuu ruuxo timirtu kama soo degayso waxa loo baahan dhowr nin inay isugu tagaan ruuxaan si timirtooga soo degto hadaba gabadh daciifa oo foola oo dhibaataysan oo naxsan sidee buu ilaahay ugu oran karaa geedka timirta ruux ilaahay wuu awoodi karaa inuu timirta soo dejiyo qacanteeda ku dhacdaydo bisil ay cunto laakiin ilaahay sharci buu inoo dejinayaa qof kasta ay muhiim tahay inuu fahmo oo ku dhaqmo ilaahay subxaanahu wa ta'aala wuxuu uga jeedaa badlil mumkin listinzaal arrahmaat wixii awoodaada ee karaankaaga isku day si arsaaqadiyo naxariistu ay kugu soo degto ilaahay wuxuu ka doonayaa inaad asbaabta aad qaadatid oo aad dadaashid siday arsaaqadu iyo hadafkaaga iyo hamigaaga noloshaada u gaadhid qacantuun bay saa u taabsaysay geedka timirta way u soo degtay macnaheedu waxa weeyaan wax badan ilaahay kaagama baahnay inaad isdhibtid waxa lagaaga baahan yahay tallaabo yaroo fudud waxa lagaaga baahan inaad kacdid inaad dhaqaaqdid inaad tallaabo samaysid inaad hal abuur iyo fikir aad la timaadid inaad aad qabatid aduu ilaahay hadhowtan arsaaqadiisii uu kuu soo dejiyo marka aad bay muhiimtahay waxaan ka faa'iideynaa inuu qofku uu u dadaalo asbaabta qaato suu hamigiisa hadafkiisa u gaadho xataa hadduu dhibaataysan yahay ama uu xanuunsanayo ama noloshu ay dhibaato badan u geysatay waxaan halka ka fahmaynaa hadafkeena iyo goolkeena nolosha aan rabnay waxa inoo dhaxeeya inaan geed aan ruuxno ama inaan qacantun dhaqaajino ama tallaabo aan qaadno soo taas waxa weeyaan dhibaato kale iyo xanuun kale Maryam haystay oo dabiiciga oo foosha ah iyo xanuunka dumarka gaadha dhibaatadii kale Maryam nolosheeda gaadhay waxa weeyaan markii ilmihii ay dhashay ay ula timi bani Israa'iil ayaa waxa lagu tuhmay sharafteeda iyadoo caabidada ahayd ee cafiifada ahayd ee shariifada ahayd marka la arkaydo ilmihii yarsiday dadkii waxay ku yiraahdeen bismillaahi raxmaani raxiim qaalu ya Maryam laqad ji'ti shay'an fariya Maryam musiibad baad samaysay oo jariimad baad samaysay waxay kale ku yiraahdeen ya ukhta Haarun ma kaana abuuka imra'a su'in wa ma kaanat ummuka baghiya waxay ku yiraahdeen ukhta Haarun ka Haarun caabida buu ahaa oo akhlaaq leh abahana wacan buu ahaa hooyadana gabadh sharaf leh bay ahayd waa maxay waxaan aad samaysay taasuna waxa weeyaan wuxuu ilaahay ku tusayaa xanuunka leedo qofka in dulmi loo geysto ama qofka sharaftiisa iyo akhlaaqdiisa in lagu tacadiyo soo taas waa dib kale Maryam gaadhay hadan ku wado dhibaatooyinkii Maryam gaadhay waxa kamid ah hadhootana Maryam way ka qaxday magaaladii oo waxa joogay boqol Herodos wuxuu damcay inuu dalo Ciisa oo taasuna ugu wacantay inuu siri mulkigaaga iyo kursigaagu qaadanaya waxay u qaxday Maryam ilmaheedii bay qaadatay way baxsato waxay joogtay Masar 12
sannadood sida culimada taariikhdu ay sheegayaan. tan ilaahay subxaanahu watacaala qur-aanka wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim wajcalna ibna maryama ummihi aayatan waawaynaahumaa ilaa rabwatin daata qaraarin wa maciin. ay tahay macnihii masar bay tageen. taasuna dhibaato dumarka ku dhacday inuu dumarku keligooda caruurta ay ku koriyaan qurba ama single mother inay yihiin. waxa kale dhibaatada kale ku dhacday ciise markuu weynaaday ay ku faraxday ay ku faantay uu nebi u noqday. hadhowtana yahuudi baa damcay mar labaad inay dilaan oo ilaahay samadii ayuu u qaaday ama korka cirka ayuu tegay oo yowm alqiyaama ayuu soo degay sida ilaahay nagu idhi. marka hadhowtana cidladii mar labaad ku soo noqotay oo keligeed bay soo noqotay inay noolaato. taasuna dhibaato dumar badan gaadha caruurta markay ka weynaadaan ama ay shaqaystaan ay ka tagaan oo keligood ay ku noolaadaan. subxaan allah. waxaasoo dhan gabadha ay ku dhaceen miyaanay cuqdad qaadin bulshadii ka dhex bixin marka loo eego dumar badan in ognahay inaanay xamili karin dhibaatooyinka badan? maryam cuqdad kamay qaadin, ismay bedelin, shakhsiyadeedu ismay bedelin, bulshadii kamay dhex bixin, dadkii may nacin. sababtu waxa weeyaan markii hore aan ka hadlaynay cibaadada wanakan yidhi cibaadadu waxay saxaysaa ceebaha iyo khaladaha aad leedahay ayay saxaysaa. maryam waxay isu bedeli weyday cibaadad badan bay samayn jirtay si dhibaatada iyo xanuunka nolosha uga baxdo. waxaan faa'iido yar aan kuu sheegayaa. maryam ilaahay qur-aanka wuxuu ku sheegay magaceeda 33 jeer. cadadka ama tirada mararka aan sujuudna habeenka iyo maalintana waa 33 jeer. ma garanay hadii xiriir ay wada leeyihiin laakiin taas waa faa'iido. waxaa loo bixiyay maryam albatuul. albatuul macnaheeda waxa weeyaan af yahuudiga waxa weeyaan ta u go'day cibaadada. maryam ilaahay qur-aanka cibaadadeeda markuu ka sheekeynay wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim wadkur fi lkitaabi maryam id intabadat min ahliha makaanan sharqiyan. yacni waxa weeyaan maryam markaas iyadoo dadka dhex fadhida ama dadkii iyo qaraabadeeda dhex fadhida intii ka dhex baxdo ayay keligeed meel tegi jirtay oo keligeed ba meel ay fadhiisan jirtay ku cibaadaysan jirtay ilaahay ku dikri jirtay. ilaahay wuxuu yidhi waxay hor fadhiisan jirtay meesha cadceedu ay ka soo baxdo si quruxda cadceeda u aragto markay u soo baxayso oo markay cibaadanayso ama ay tasbiixanayso ay si dhadhan leh iyadoo arkaysa awoodda ilaahay iyo quruxda abuurta ilaahay siday u aragto oo dareen iyo ixsaas ay ku cibaadaysato. ilaahay subxaanahu watacaala maryam markuu ka sheekeynaya cibaadadeeda wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim yaa maryam uqnutii lirabbiki wasjudi warkaci ayuu ilaahay yidhi. ilaahay wuxuu ku yidhi maryamey sujuud rukuuc ilaahay caabud. marka waxay cuqdad u qaadi weyday cibaadadii farabadnayd ay samayn jirtay ayaa maryam qalbigeeda maydhay oo ka nadiifisay dhibaatada iyo cuqdada. waad mahadsantay doctor. waxaan doonaya kale inaan ku weydiiyo waa maxay midhaha ay maryam ka heshay cibaadada ama aan odhan karnaa gabadh kasta way ka helaysaa cibaadada? marka koobaad midhaha ay ka heshay maryam cibaadada waxa weeyaan al-istifaa. qof kastoo cibaadaysta ilaahay dadka uu kasoo dhex saaraya oo dadka uu ka dhex muuqanaya. wuxuu dadka kaga dhex muuqanaya hadduu business uu leeyahay business wacan buu noqonayaa oo dadku ay ka yaabayaan oo si fiican u socda. hadduu wuxuu noqon karo qof aftahamo ah oo ilaahay hadal uu siiyey iyo hadal wacan iyo carab wacan uu siiyey cilmigaaga dacaan ku noqonaysaa. dadkaad ka dhex muuqanaysaa dhaqankaaga diintaada tallaabadaada dadka waad ka dhex muuqanaysa ilaahay baa dadka kaa dhex dooranaya. maryam ilaahay dadkiibuu ka dhex doortay. wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala yidhi waid qaalat ilmalaa'ikatu yaa maryam إن الله اصطفاك إلهي وكدورتي وطهرك وكطاهري واصطفاك على نساء العالمين. مريم دمرك أدون كون إلهي أبوري وكاسو دح دورتي وكاسو دح صارتي. مركا تكوباد ميراها كوباد وحويان دادك تكدح موقنيسا waxaad noqonaysaa special waxaad ku noqonaysaa dadka dhaqankaaga iyo afkaaga iyo tijaaradaada iyo cilmigaaga dadka waad ka dhex muuqanaysaa. talabaad waxa weeyaan midhahaad ka helaysid cibaadadaadad ilaahay aad caabidid oo maryam ay ka heshay waxa weeyaan arsaaqad baad helaysaa. arsaaqadaasoo noqon karta lacag iyo noqon karto arsaaqad nafsiya. zakariya markasuu maryam qolkeeda u galo wuxuu arki jiray arsaaqadii iyo cunto aan oolin magaalada ayuu ka heli jiray. markaasoo ilaahayba qur-aanka uu sheegay wuxuu yidhi bismillaahi raxmaani raxiim kulama dakhala calayha zakariya almixraaba wajada cindaha risqan. markasuu qolkeeda u galo wuxuu arki jiray meesha ku cibaadaysanayso maryam cunto aana magaalada oolin oo ka go'day. wuxuu arki jiray markasuu u galo wuxuu ku arki jiray arsaaqad nafsiya yacni khushuuc xasalooni deganaasho
farxad ayuu ku arki jiray taasuna waxa weyn midhaha laga helo cibaadada tasaddexaad cibaadada laga helo waxa weyn ilaahay inuu ummadiisa iyo cibaadkiisa ku sakhiro maryam markuu dhintay waalidkeedu hooyadeed ay dhimatay waxa kafaalad qaaday zakariya iyo raggii ku cibaadaysan jiray masjid al-aqsa aabaheedna macallin buu ahaa ragga wax buu bari jiray kulligood waxay isku dileen qofka maryam kafaalad qaadaya ilaa heer ay gaari in la sameeyo qalin baa la tuuray qalamadii ay wax ku baran jireen bay badda ku tuureen qalinkii ugu dambeeyay biyuhu u liqay wuxuu soo baxay zakariya marka ilaahay dadka ayuu ku sakhiray hadad cibaadad fara badan adyeelatid ta ugu dambeysay laga helayo cibaadada ee maryam ay ka hesho qof kastana uu ka helayo cibaadada waxa weeyaan waxay ka celinaysaa ina jabka nafsiyadaada ama qalbigaagu inuu jabo ama burbur maskaxdaada inuu ku dhaco ama inaad isku dhexdaadatid ama inaad cuqudad qaadid ama isbedeshid ay cibaadadu ka ilaalinaysaa haddaad si fiican ilaahay u cibaadaysatid oo awoodda ilaahay aamintid taas waxay midhaha laga helayo cibaadada جزاك الله خير دكتور aad baad mahadsan tahay hadaba doctor hadii aynu hore ugu sii socono qodobkeenan ama xalqadeenan maanta dumarka ka hadlaysa sidaan ognahay dumarku waa hormuud waqtiga waxbarashada sida waqtiga markay secondary-ga ku jirto waxaan aragnaa hablo badan oo kaalmaha koowaad galaya waqtiga jaamacadda hablo badan oo kaalmaha koowaad galaya waxaan aragnaa dumar badan oo waqtiyada waxbarashada ugu horeeya sida lagnahay dumarku marka waxay la nool yihiin xaalado kala duwan sida inay haweenku ay hooyo noqdaan hooyadaas ay u soo raacaysa inay uur qaado uurkaas u raacaysa inuu umul noqoto umushaas oo soo raacaysa inay barbaariye ama ubad koriye noqoto iyadoo duruufta ku nool dumarkaasi ama haweenkaasi sidee ay u qurux badnaan karaan sidee ay hormuudka u haynaysaa ay sidii hore ay u haysay iyo duruufahaas la soo dirsan sidee ay uga hortagi kartaa ama aanay ugu jabi karin